cashirkeena galabta wuxuu ku saabsanaan doonaa English vocabulary eraya cusub oo ka wada bilaaban doona erayga b marka dhageysi haboon body weight body weight waa miisaanka jirka body weight miisaanka jirka boiled water biyo karkaraya waa biyo koronto ama dab la saaray zaid u karkaraya brave soldier askari geesiya promotion dalacaad qof shaqo hayay oo meeshu joogay meel ka fiican la geeyay pons lafo jirka noolaha lafaha ku jira ama jirka bini'aadamka muxuu ka samaysan yahay hilib iyo lafo waaye marka pons waa lafo building center xarunta dhismaha breakfast waxaan dhahaynaa qureec oo cuntada aroortii la cuno pumin waa wax soo koraya town waa magaalo marka maxay noqon magaalo soo koraysa blood test tijaabo baaritaanka dhiiga ama tijaabada dhiiga su'aal qof xanuunsaday dhiigiisa tijaabo laga qaaday ama baaritaan lagu sameeyay maxay noqon blood test boarding school waa dugsiga hoyga iskuulka ilmuhu ay seexdaan ee habeen iyo maalinba joogayaan waxaa la yidhahdaa boarding school beauty land dhul beauty waa qurux landina waa dhul marka maxay noqotay dhul qurxoon ama dhul qurux badan bad luck nasiib xumo bad waa waxun luckna waa nasiib markii la isugu maxay noqdeen bad luck nasiib xumo bookshop meesha lagu iibiyo ama dukaanka buugta lagu gado beef waa hilibka looda maxaa la dhahaa beef ayaa la yidhaahdaa beef waa hilibka looda waxaa la yidhaahdaa beef hilibka barrel of water barrel waxa weeye foosto ama caaga noqoto ama bir ha noqoto foosto waterna waa biyo marka maxay noqoto barrel of water maxay noqotay foosto biyo ah I need a barrel of water waxaan u baahanahay foosto biyo ah barrel of water maxay noqotay foosto biyo ah busy waa mashquul I'm very busy aad baa mashquulsanahay waa maxay shinni mashquul ah shinni mashquul ah peaceful man peace waa nabad full waa nabad buuxda maxay noqotay marka peaceful man nin nabadeed hebel waa nin nabadeed taas cashirkeena ku daynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi